midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay dadkii Somaliland ay kasoo musaafirsay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolada Baay iyo Bakool. War-saxaafadeedka kasoo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in aad ay uga xun yihiin dadka laga soo musaafiriyay Somaliland iyagoo falkaasi ku tilmaamay mid xadgudub ku ah oo lagula kacay dadkaasi Soomaaliyeed oo isugu jiray caruur, haween, dhalinyaro iyo odayaal. Golaha ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan fal-dambiyeedka ay dad kooban geysteen loona bartilmaameedsado bulsho idil, isla markaasina falkaasi uu meel ku dhac ku yahay islaamnimada iyo Soomaalinimada intaba. Sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay culimada, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanka, indhergaradka iyo waxgaradka kasoo jeeda Somaliland inay ka hortagaan falkaas guraacan ee dhaawacaya walaalnimada iyo ummadnimada ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dowlad goboleedka Puntland uga mahadceliyay mas'uuliyiintii iyo shacabkii isku xilqaamay inay gargaar u fidiyaan dadkaasi Soomaaliyeed ee la soo barakiciyay. Saudi Xaaji Maxamed, TV-ga caalamiga Kalsan, Muqdisho.